maxaad ka taqaan magaalo buureedka Kondofan ee dalka Iran? Soo dhawaada asxaabay. Magaalada Kondofan waxay ku taallaa cirifka ugu shisheeya waqooyi galbeed ee dalka Iran. Magaaladan oo buur dhagaxyadiisa laxi waaweyn laga qoday ka samaysan waxay ka mid tahay goobaha ugu layaabka badan dunida, gaar ahaan marka laga hadlayo dhismaha iyo xadaarada dadkii hore. Eray ahaan, magaca magaalada Kondofan waxay afka Iiraaniga ku noqonaysaa magaaladii xabaal qodayaasha dhagaxaanta. Waa muuqaal aan la rumaysan karin marka meel fog laga joogo in guriyo iyo meel la degan yahay yihiin, waxaana la moodaa sidii boholo iyo godad bahala galeen ah oo dudumooyin sidooda u dhisan, laakiin marka loo dhawaado ayaa la garan karayaa in guriyo ay yihiin oo la degan yahay. Kondofan oo ka mid ah waqtigan goobaha loo dalxiis tago ee taariikhiga ee dalka Iran ku yaala, waxaa sidii loo degay iyo sababtii ku kaliftay dadkii qoday buurahani leedahay taariikh dheer oo ilaa 1000 sanadood ku dhow. Sida taariikhda magaalo buureeddan lagu hayo, dadkii hore ugu dhaqnaan jiray deegaankaas ayaa waxa weerar xoog la soo qaaday xoogagii Mongooliyiinta, kuwaas oo dunida inteeda badan ku qabsaday gulufkoodii weynaa. Dadka reer Kondofan ayaa guriyo ka qotay dhagaxaanta salaxyada ah ee buuraha ku dhararan jiidaas, halkaas oo ay ka hirgeliyeen magaalo difaac ahaan amnigeedu sugan yahay, isla markaana u adkaysan karta dabeecadda iyo cimilada qalafsan ee deegaankaas ka jirta. Magaalada Kondofan oo afka Faarisiga macnihiisu ku noqonayo dhulkii xafaariinta godadka ayaa inkastoo dudumooyinka aboorku dhiso oo kala weeg tahay, marka gudaha loo galo ka yaabinaya sida dhagxaantaas la qoday uga samaysteen guryaha quruxda badan ee nashqadoodu sareyso. Inkastoo Mongooliyiintii jabeen oo aanay jirin cabsidoodii xilligii ay gulufka iyo dagaal ku qabsanayeen, dunida inteeda badanna ay ka nabad galeen, haddana dadka reer Kondofan ilaa weli waa kuwo ku nool guryaha ay dhagxaanta buuraha ka qoteen ee cabsida ku kaliftay. Guri kasta oo ku yaala magaalo buureeddan Kondofan ee dalka Iran ku taala waxa uu leeyahay nashqad iyo hab loo dhisay oo aad kaaga yaabinaya. Qol kastana waxa uu dhammaystiran waxyaabaha asaasiga u ah nolosha aadamiga. Naqshadda ay u sameeyeen waa ta ka wada yaabisay dunida oo dhan, sababtoo ah waxa dhismahooda la moodaa in sida waqtigan casriga ah wax loo dhisto loo dejiyay dhammaantood guryaha ku yaala. Buurtani waxay u jeedaan dhinaca bari oo ah jihada keliya ee aanay dabayshu ka soo dhicin marka la joogo buurahan. Haddaba waqtigan oo ay dhamaadeen dadkii xafaarinta ah ee qoday buurahan guryahana ka samaysan jiray ayaa ilaa iyo weli la degan yahay oo guryo cusub laga samaystaa. Marka la waraysto dadka ku nool magaaladan Kondofan, waxay ku sheegayaan in qodista halkii qol ama guri ee buurahani ku hirgelay 4 sano oo la jafo dhagxaanta salaxa ah. Magaaladan waxa ku yaala 190 guri, waxaana ku nool 1000 iyo dheeraad qof. Markastoo aanu guri cusub dhisayno ama aanu mid hore u jirnay kordhinayno, waxaanu adeegsanaa qaabkii awoowayaashayo wax u dhisi jireen, oo waxaanu qodnaa dhagxaanta salaxa ah annagoo isticmaalayna madaraqyo, sabarado iyo waxyaabo kaloo bira ah. Dhismo kasta waxa uu baahan yahay in la raaco qaab injineerin xasaasi ah oo waxa loo sahamiyaa inaanu dhagaxu noqon mid dumaya, in habka loo qorayo qurux iyo nashqada la jaan qaado, iyo in laga sameeyo guri qoys ku noolaan karo. Inkastoo kumanaan sano oo ka soo wareegtay waqtigii la aasay magaalo buureedda Kondofan, haddana weli kama dhammaan dhaqankii sababta u ahaa dhismaheeda ee cabsida iyo feejignaanta ku dhisnaa. Markastoo aad booqato deegaankan, waxa dadka ku dhaqan kula dhaqmayaan sidii qof aanay weligood hore u arag, waxaana caado u leeyihiin halku dhageen aanayso oo u bixiyaan dadka soo booqda. Haddana maaha dad soo dhaweyn xun oo xidhxidhan. Waxa soo degay ganacsato badan, dalxiisayaashuna way ku bateen oo sii kordhiyeen cabsidii dadka reer Kondofan ka qabeen in lagu soo ciriiriyo dhulkooda. Dibadda hore ee magaaladan waxa durba laga hirgeliyay hodhaal dalxiis, kaasoo dhismaha wajiga hore looga eekaysiiyay sida guryaha dhagxaanta salaxyada ka dhisan ee reer Kondofan, laakiin gudihiisu ka duwan yahay oo internet iyo telefishan iyo nolosha casriga ah ee dunidu ka jirto. Dalxiisayaashu waxay halkan u yimaadaan si ay noo daawadaan, laakiin uma yimaadaan inay nolosha nagala qayb qaataan oo hoos noo ogaadaan. sidaa waxa ku odhanay qof kasta oo reer Kondofan ah. Isku soo wada duubo, magaaladan Kondofan waa mid gudaha dalka Iran laga wada yaqaano, taariikhdeeduna ku weyn tahay, laakiin muuqaal ahaan waqtigan ugu dhigan goob dalxiisaad loo tamasho la tago. Fiidiyowga like saar, siina share gareeyo. Assalaamu calaykum.